السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo maanta oo khamiisa taariikhdu ay tahay 1 bisha Agosto sanadka 2024 qodobo muhiim ah ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa xaaladda gobolka bariga dhexe oo cid ka gashay Israa'iil oo mar kale sheegtay saacada koor inay dileen taliyihii al-Qassam Maxamed Dayf. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku hayaa hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil oo sheegtay in ay si aad ah u ilaalin doonaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyagoo sheegay inaan loo ogolaan doonin meel aan ahayn godadka dhulka hoostiisa ah in lagu qariyo marka uu ka qayb galayo kulamo iyo waxyaabaha la midka ah. haddaba xaaladda Israa'iil oo walwal fara badan iyana uu ka jiro. sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa Iiraan oo maanta loogu sameeyay baroordiiq laguna dukaday salaada janaasada Ismaaciil Haniya iyadoo aayatullaahi uu wacad ku maray inay aargudan doonaan. haddaba Mareykanka ayaa wuxuu wadaa dadaalo uu kaga dalbanayo Qatar in warqad ay u gudbiso Iiraan iyo Xisbullah si xaaladda aan cirka loo geyn gobolkana uusan u noqon mid dhiig fara badan uu ku daato. haddaba qodobadaasi iyo wixii kale soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin la wadaagi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahinta boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. kulanti wanaagsan mar kale khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo annagoo idinku soo gudbin doona macluumaad aad u xiiso badan oo ku saabsan xaaladda gobolka bariga dhexe oo gaartay bariga dhexe. haddaba waxaan barnaamijkeeni kugu hayaa wararkii ugu waaweynaa ee soo baxay saacadihii la soo dhaafay. haddaba waxaa la leeyahay shirkadihii ugu waaweynaa diyaaradaha Mareykanka waxay joojiyeen inay duulimaad ku tagaan Israa'iil iyadoo laga baqayo Israa'iil in markaa weerar lagu qaado dhinacyo kala duwan hadday tahay Iiraan, Xisbullah, Xuutiyiinta, kuwa Ciraaq iyo meel kasta in markaa hadda ay tahay meesha ay doonayaan dhammaantood inay weerar qaadaan si ay markaa ugu aargudaan Ismaaciil Haniya. haddaba wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsat ee ka soo baxa magaalada London ayaa wuxuu qoray warbixin uu kaga hadlayo sheekadan. wargeyska wuxuu yiri shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee Mareykanka ayaa joojiyay safaradii ay ku tagayeen Israa'iil. haddaba shirkadda weyn ee United Airlines iyo shirkadda la yiraahdo Delta Airlines ee waddanka Mareykanka laga leeyahay ayaa labaduba waxay ku dhawaaqeen inay joojinayaan duulimaadkii ay ku tagayeen Israa'iil. sidoo kale dhanka kale shirkadda diyaaradaha British Airways ee laga leeyahay waddanka Britain ayaa iyaduna maanta
iyaduna waxay sheegtay in ay joojinayso safarada ay ku tegayso Israa'iil sida lagu soo qoray wakaaladda wararka ee dhinaca Jarmalka. haddaba xaalku waad u jeedaa wuxuu marayaa meeshii ugu halista badnayd. nimankii Iiraaniyiinta ahaa waa lagu dhagan yahay, waxaa la leeyahay sheekadan armaad la ku leedihiin. iyaguna waxay rabaan inay iska mayraan sheekadaas. maanta waxay soo bixiyeen meydkii, way ku soo dukadeen, way soo baroor diiqeen, diyaarada la soo saaray. berito waxaa la geynayaa Dooxa haddii alla idmo jimcaha salaada kadib waxaa lagula dukanayaa masjidka la yiraahdo Maxamed bin Abdul Wahhab ee ku yaala bartamaha magaalada Dooxa. kadibna waa la aasi doonaa. markii la aaso kadib ayaa Iiraan waxay tiri jawaabta way arki doonaan. marka xaaladdu halkaas ay maraya. marka waxaan leeyahay dadka khubarada haddii Iiraan ay arrintan si rasmi ah ama si dhab ah aysan uga falcelin ayadaa lagu jiraa, oo marka xiriirka Xamaas iyo waxa dhan iyo uu xumaanaya. Iiraan inay ninkaas shirqooshay ayaa soo baxaysa. si ay markaa isaga mayraan arrintaas way ku qasban yihiin aan leeyahay inay weeraro xanuun badan Iiraan ay ku qaado Israa'iil. haddaba arrintaa hadday dhacdana Maraykanka soo faragelin doona, gobolka sheekadiisu cirka ayay geli doontaa. haddaba sheekooyin cajiiba ayaa noo soo socda. Israa'iil oo mar kale sheegtay inay dileen al-Qassam ninkii ugu sarreeyay. haddaba Xamaas arrintaa maxay ka jawaabtay iyana waan idin hayaa iyo qodobo kale, balse markan waxaan galaynaa Maraykanka. xaaladda wuxuu rabaa inuu dejiyo gobolka. wuxuu u arkaa sheekadanu hadday mar Iiraan weeraro qaado oo awlaadeeda qaadaan in gobolka oo dhan uu noqonayo meel dagaal. markiiba marka wuxuu isagu la hadlayaa carabta. wuxuu leeyahay cid idinkaga futuxan ma leh. gobolkan hadday wax ka qarxaan adinka waa idin dhammaatay. raaxadan ma jirto, weesha la kala tagaa, dhagaha la iska garaaca, madfac wiiftaa iyo gantaal wiiftaa badan waa idinku dhici doonaa. ee arrintan wax ka qabta. haddaba marka aan idin tuso warbixintii ugu dambeysay sheekadan Al Jazeera ka qortay, telefishinka CNN ee waddanka Maraykanka ayaa goordhow wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken uu ka codsaday dhigiisa waddankaasi Qatar in markaa warqad loo gudbiyo Iiraan iyo Xisbullah si markaa xaaladda loo dejiyo. haddaba marka warbixinta oo sii socotay waxaa leeyahay shabakadda CNN ee waddanka Maraykanka ayaa waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken inuu markaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in markaa warqad Maraykanka ka socota loo dhiibo Iiraan iyo Xisbullah. haddaba shabakadda waxay leedahay Blinken waxa uu ka codsaday in arrintan la dejiyo oo Qatarna ay ka shaqayso sidii xaaladdu aysan faraha uga bixi lahayn. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Tahraan lagu dilay Ismaaciil Haniya, Xisbullahina laga dilay abaanduudahooda Fu'aad Shukri. xaaladdu halkaasay maray. Qatarna waxaa leeyahay warqadan Iiraan iyo Xisbullah u geeya xaaladda ha la dejiyo, haddii kale haddaynan ka shaqayn carab yahay hawshan waxa meeshan ka dhaca waa la kala tagaale. carabtii dhagaha u taaga waa la yaabay, wax la sameeyo lama yaqaano. Qatar ma aqbali doontaa, maxay samayn doontaa lama yaqaano. Maraykan wuxuu leeyahay xiisadayaan looga darin, inta hal la joojiyo, hal qof kaliya dhintay hadda, laakiin gobolka oo dhan wada dhiig noqon doona. annagu waa ku qasbanaa inaan Israa'iil difaacno, inaan wax walba nagta ka gelino wixii ka hor yimaada. annagana waxay rabaan sheekada waxa meesha ka dhacaya waa yaabaysaa. qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. waxaa noo soo socda sheekada ku saabsan Israa'iil oo maanta haddana sheegtay inay dileen ninka la yiraahdo Maxamed Ad-Dayf, taliyaha ciidamada Kataa'ibul Qassam, garabka militariga ee Xamaas. laakiin markan waxaan galaynaa ammaankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa loo yimid. ninka u dhigma ee Ismaaciil Haniya looga argudi doono Netanyahu ay taagan yihiin Xamaas. cabsiyaa jirta, khalkhal badanaa yimid. ninkii ra'iisul wasaarihii waxa waaye hay-adihii sirdoonka amarray ku soo rogeen. xafiiskiis ma dhaqaajin kartaan, meel aynaan ogeyn ma geyn kartaan.
meel aan god ahayn dad ma ku qaabili karo bilaabat odagii markaa iskiisa markaa culays xabsi uu u galay haddaba marka aan idin tusoo sheeko cajiiba oo aljaziira ay ka qortay warkan kanaalka Israa'iil laga leeyahay channelada Israa'iil ee telefishinada ayaa waxay ka hadlayaan hay-adda gudaha sirdoonka Israa'iil yiraahdo Al-Shabaab ayaa waxa ay samaysay in ay sheegtay inay soo rogtay amaro cusub oo ku saabsan ammaanka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kanaalka 12 ee Israa'iil wuxuu leeyahay Al-Shabaab hay-adda la leeyahay sirdoonka gudaha waxay soo saartay amaro ay markaa ku amrayso hay-adaha ammaanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ammaankiisa in markaa uusan ka qayb gali karin meel aysan iyagu ogeyn halka meeshaas uu ku sugan yahayna meel aan lahayn meel lagu dhunto oo darbiye adaga oo dhulka hoostiisa ah inaynu markaa uusan tagi karin haddaba madaxa hay-adda Shabaab la yiraahdo sirdoonka gudaha ninka la yiraahdo Awcaz wuxuu sheegay inuu helo waaye ka hor ogolaanshihiisa in la helo ilaa meesha uu aadayo ra'iisul wasaaraha inuusan meelna aadi karin iyadoo hay-adda sirdoonku aysan markaa ka warhayn ninkii Netanyahu isaguna xaalkiisa halkaas u maraa sheeko waa wareertay ninkaana meel god u dhow loo raadiyaa la leeyahay marka xaaladda bariga dhexe ma maqli jirtay hebel xaaladiisu waa bariga dhexe hadda barigii dhexe ayaa wuxuu noqday bariga dhexe u noqday marka hadda waxaan leenahay xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe waa meeshii ugu xumeed ee maraysaa cabsida gariirka waxa meesha ka socda maxaa dhici doona maxaa meesha la isku ridi doona sidee arinta loo qaboojin doona haddaba ilaahay ayaa yaqaana sheekada dilka ninka ay Israa'iil sheegayso ee taliyaha Al-Qassam waa noo soo socdaa balse waxaynu ku yaranaysanaynaa qadar xayisiisa waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Carers ee ku taala UK dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya xaruntaasi Sana Carers waxa kale ay dadka ugu tala gashay in ay dadku la shaqeynayaan dadka markaasi baahida gaarka qaba oo ay guryahooda kula shaqeynayaan laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay-ad u dhaxaynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.sanacarers.com waxaan nahay Gastasos Group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah jiif quraac iyo waliba jimicsi Sona Hall Sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaasi ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka kulanti wanaagsan khiyaarey mar kale meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qaybihii dambe ee barnaamijkeena galabnimo ee maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay 1 Agoosto sanadka 2024 qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaan idin hayaa 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii Israa'iil ay tiri waxaan dilnay Maxamed Dayf weerar ay ku qaaday Khan Yunis oo dad fara badan ilaa 400 oo qof ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay xaalku uu markaa noqday meel dhiig badan uu ku daatay haddaba xilligaas Hamas waxay sheegtay inaanay jirin wax ay Israa'iil sheegayso oo meeshana aanuba ku sugnayn Maxamed Dayf ay dad rayda iska laysay markaa Hamas way beenisay Israa'iil marka sibay uga yara laabatay arintaas ma sii qaadin oo warbaahintu way ka gaabsadeen markii warkay uu sii socon waayay natiijadiisa iyo xaqiijintiisa warkii marka sidii ku damay 2 week ka hor ahayd hadda marka maxaa soo kordhay maanta saacad ka hor ayay Israa'iil ciidankeedu waxay leeyihiin ila sirdoon ayaa noo xaqiijinaya maalinta weerarkaynu qaadnay dadkii meesha ku dhintay inuu ku jiray Maxamed Dayf haddaba marka Maxamed Dayf horay u sheegtay Hamas inay arintaasu been tahay dilkuna ma aha mid maanta dhacay kii maalinkii ka hadlayeen 2 week ka hor
marka sidee la isu waafajin karaa wixii marka falanqeeyaashu ay ka yiraahdeen waa idiin man doonaan laakiin markan wixii laga qoray ayaan idinla wadaagayaa aljazeera waxay leedahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay dileen Maxamed Dayf oo markaa isagu ka tirsanaa al-Qassam hogaamiyaheeda ahaa Xamaasna hore ayay arintaa uga hadashay oo ay u beenisay haddaba ciidamada Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa inay si rasmi ah u sheegeen inay dileen hogaamiyihii guutada Kataa'ibul Qassam Maxamed Dayf weerar dhinaca oo 2 toddobaad ka hor ku qaadeen Khan Yunis oo ku taala koonfurta magaalada Gaza haddaba hogaamiyaha ka tirsan Xamaas ayaa waxaa la sheegayaa in dilkiisa horay ay u beeniyeen Xamaas oo ay sheegeen in aanu waxba ka jirin haddaba lama yaqaano hadda waxa ay Xamaas mar kale ka dhihi doonto waayahay sheekadan marka maanta waana loo xaqiijiyay leeyahay maalintaas weerarkii aan qaadnay oo ninka ku weerarnay inuu dhintay hadda maanta ila sirdoona helna leedahay Israa'iiliyiintu leeyihiin Xamaasna maalintaas maxay tiri wax ka jira ma jiraan taliyaha Qassam hawshiisa wata hawshaas halkaas ay marka ku nusneed hadda marka aan idila hadlayo Xamaas jawaab kale wali arinta kama soo saarin laakiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin sheekadanu waxa waaye weerar dhinaca maskaxda ah oo lagu qaadayo al-Qassam iyo Falastiiniyiinta iyo Xamaas kulligood in la niyad jabiyo ayaa la rabaa leeyahay sababtu maxay tahay madaxii xafiiska siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya waa la dilay shalay haddana maanta waxay leeyihiin waxaan dilnay kii militariga ugu sareeyay ee Kataa'ibul Qassam marka macnaheedu labadii nin ee ugu sareysay Xamaas waa dilnay ninkii siyaasadda iyo ninkii militariga ka wadaan laakiin tan way diidan yihiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin waa ciyaar siyaasadeed oo maskaxda ay dadka ku wareerinayaan hore arintan u dhacday 2 wiil ka hor Xamaas way beenisay iyaguna way ka gaabsadeen sababta maanta soo celinaysa marka waxa leeyahay inay kaga faa'iideystaan barordiiqda iyo niyad jabka ku jira Falastiiniyiinta maadaama hogaamiyoodii la dilay in haddana hogaamiye kale la idinka dilay la yiraahdo oo marka ay niyad jabiyaan ay doonayaan ayaa la leeyahay qodobkaas ugu dambeeyay barnaamijkeennii galabnimo barnaamijyada la gareeyo oo share gareeyo meel kasto aad nagala socotaan asxaabay sidoo kale barnaamijka hadaad ku cusubtahay subscribe sar YouTube-ka Facebook-ga follow gareey ku xirnaa barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inta aan mar kale kulmayno hadii alla idmo iyo barnaamijkeena kale nabad